السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواada daawadayaashana qiimaha badan ee inagu xiran kanaalkeena umada ee YouTube. Haddaad ku cusubtahay daawada inagu soo biir adigoo taabanaya calaamadda subscribe kadibna furo gambaleelka si ay kuu soo gaaraan muuqaalada waxtarka leh ee lagu baahiyay kanaalka. Ana ka imaamin muuqaalka inaad like saartid mahadsanid. Muuqaalkeena maanta waa mid aad ku arki doonto dadkii ugu doqonsanaa iyo meelihii ay ku caliqmeen. Ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta. ciyaarta basketballka ninkan wuxuu lugta la galay goosha basketballka oo waxa sababtay inuu meeshan lugta gashto ninkani yacni ku caliqmo xawaaraha awoodeed ee korubooditaankiisa. baabuurkan wuxuu ku dhex jiraa daad dhexdiisa. marwada gaariga kaxeynaysa waxay bilowday inay daaqada ka baxdo si ay u korto saqafka gaariga. ugu dambeyntiina waxaa badbaadiyay shaqaalaha badbaadada. gabadhan waxay lugta la gashay shabaqa bulaacadaha oo maxay lugteeda meesha kala doontay sidii meesha ay ugu jirtay. ugu dambeyntii waxaa badbaadiyeen shaqaalaha badbaadada iyagoo biraha jibiyay. ninkan waxa uu u dhaqmaa sidii caruurtii oo kale oo waxa uu ku ciyaarayay ciyaalka waxa ay ku ciyaaraan. wuxuu galay meeshan wuuna ka soo bixi kari waayay. gabadhan sidoo kale waa caqli caruur waxay ku ciyaaraysay wiifooga waxaa ku dhigtay birtii wiifooga oo waa ay ka bixi kari weysay. ugu dambeyn waxaa soo gaaray shaqaalihii caawiyaasha ah oo meesha ka saaray. dambiilayaasha waa kuwo isku daya inay ka baxsadaan booliiska. ninkan waxa uu rabay inuu gidaarkan shabaqa ah uu ka boodo oo sida uu booliiska uga cararo uma suurtagelin taas oo lugta baabirtii u gashay taas oo ku qasabtay ninkan inuu isdhiibo. cunugan yarka ah waxa uu ku dhex jiraa fadhiga suuliga oo waa uu iska baashaalayaa oo aaway wixii dhalay oo meesha may ka saaraan cunugooda. waxaad filimada aad ku aragtaan iyagoo jilayaasha ay jilayaan inay meelaha dhooqada ay ku quusayaan, laakiin muuqaalkan ninka askariga ah waa mid run ah oo asiga ku dhacday. ninkan waxaa ku dhacday layaabkan aad ku qosli doonto. carabkii baa birta kaga dhagay oo waa yaab maxaa carabkaaga meesha u geeyay. naagtan sidoo kale waxay gacanta gashatay fadhiga suuliga oo waa awoodi kari weysay inay gacanta fadhiga kala baxdo. ugu dambeyntii waxaa loo yeeray shaqaale si ay u jibiyaan fadhigan. ninkan waxa uu dhex galay birtan waana laga saari kari waayay yacni meesha ayuu ku dhagay. ninkan waxa uu goonayaa laamiga asagoo meeshan ka tilaabayo, laakiin doqonnimadii labadii lug buu hal mar meesha gashtay. run ahaantiin waan la yaabay. ninkan waxa uu canaananayaa eri asagoo dharbaaxayo eriga. bal daawo adiga yaabi doonee. Pourquoi tu es aussi malhonnête comme ça? Quand les gens te posent
xanaaqii doqonnimada ahaa. Ilmaha waa ay ka dib dhaceen inay aabbahooda ka furaan albaabka. Siduu aabbihii albaabka u garaacaya, aabbihii waa uu xanaaqay. gaarigii buu galay. Wuxuu gaarigii dardarsiiyey albaabka. Waxaa soo baxday gabadhii si ay albaabka ugu furto, laakiin gaarigii ayuu dardarsiin gaaray. Nasiib wanaageed Allah ayaa badbaadiyey. hadba daawade inala wadaag qaybta hoose ee faalooyinka qaybtii adiga kula cajiibsaneed. hana ka ilmaamin muuqaalka inaad laag saartid oona la sii wadaagtid asxaabtaada. waxaa mar labaad xasuusinayaa asxaabta weli inagu soo biirin inay inagu soo biirto oo kanaalka ay rukuntaan. waad mahadsantihiin dhammaantiina daawadayaasheena qiimaha badan ee inala soo gaaray bardhamaadka muuqaalkeena maanta. waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo amaane Allah. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.